halkan waxaa la fadhiyaa gudoomiyaha hay'adda diiwaanka sakada samafalka qaranka Soomaaliland Sheekh Dr. Saciid Maxamed Tarax. Sheekh waxaa jirta muddooyinkii ugu dambeeyay dalka waxaa muddo sanada ka howlgalayay shirkad la yiraahdo Forever Living Product. shirkadaas waxay soo saartaa waxyaabo dabiici ah oo ay ka mid tahay dacarta oo siyaabo kala duwan loo adeegsado. waxaa jirta shirkadaasi dadka wax ka iibsada marka iibsadaan waxay ka noqdaan qayb ka mid ah shirkadaasi iyagoo macaamiil kale haddii ay keenaan ku helay ujuuro. arrintaasi diinta islaamku maxay ka qabtaa ma bannaan tahay mise ma bannaan? بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقمان هذا رضيق بلشتي في وان سلامية أدبه مهتسنتهين سواشينا أدان سواشا كسور دوادو كساب سن كمبنيغان أتشكتيب فوريفر laba qaybood baan ayaan jawaabteeda u kala qaybinayaa. qaybi waxa weeyaan khibradda gaarka ah waan u leeyahay company-gan ama barnaamijkan. qaybta labaadna shariicada islaamka ama diintu maxay ka qabtaa? shariicada islaamka in waafajinayna marka ma la socotaa mise way ka soo horjeedaa shariicada. tan ku saabsan marka ugu horeysa khibrad ahaan dad badan oo familiga ama qoyska ama saxaabtayda ayaa company-gan xiriir la lahaa. waxay ugu lahaayeen wax kale maahay waxay isticmaali jireen alaabtan company-gu leeyahay. aniga laftarkaygu alaabtan waxbaan ka isticmaalay hadday tahay baashan kilada deodoranta, hadday tahay cadayga lagu cadaydo, hadday tahay malabkooda, hadday tahay sharoobo la cabo oo lafaha adkaysa, hadday tahay tu kale oo akramakumullah caloosha socodsiisa ama caloosha maaragtay qofka bini'aadamka nadiifisa. product ilaa 7-8 ayaan ka isticmaalay. dabeetana dubi anigoo maraya baan haddana nasiib u yeeshay company-gii baan isiri balad amaba ay waxaa soo dadii barnaamijkan ay isticmaalayaan qaabkan suuq gelinta tan iyo waxan bal company-ga tagoo soo warayso oo bal arrinta ka daba tag. anigu company-ga waan tegay safarka anigu dubi dana kale u leh waan company-gii waan tegay ninka meesha haysta ee manager-ka company-ga oo dhan ee qaybtan Middle East ama Sharqul Awsat ka mas'uul oo nin Tunisia oo nin fiican ah ayaa la kulmay. ninkii baan ka waraystay sidaa wax u iibisaan, sidaa wax u samaysaan, suuq gelinta sidaa u samaysaan, maadadiinu maxay tahay. intaasaan oo taanu barnaamijyaan soo ogaaday. dadna waxaan soo ogaaday markaan shuruudihii suuq gelinta shariicada islaamku ay dhigtay sidii xalaal uga dhigto ilaa 6-7 shardi. 6-7 shardi baan arkay oon si yani practical waxaan u arkay inay company-gani uu waafaqsan yahay shuruudaha loogu talagalay in yani shariicada islaamku ay fasaxday. horta marka ugu horeysa waxaan beec la yiraahdaa waxa la yiraahdo mucaamalaadka waxa asal u ah inay xalaal tahay. wax shariicada ama nasigu inaga horkeena mooyaane si guud wixii mucaamalaadki waa xalaal. ilaahay wuxuu yiri Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. waxaan jeclaynaa si fiican ba yani waqti hadii sidoo si fiican kugu sharxo. ilaahay wuxuu xalaaleeyay bay'a waxaanu naga xaraantinimeeyay ribada iyo noocyadeeda oo dhan. company-gani wuxuu iibinayaa alaabtaasi horta waa alaab xalaal ah. xalaal bay tahayo majliska ama fadhiga islaamiga ah ee cuntooyinka Mareykan ku yaala ayaa laga haystaa certificate in maadooyinkan dacarta laga sameeyay ku jira ilaa 200 oo alaabtoodu ilaa 200 oo nooc kala gedisan. 200 ee nooc inaanay hal shay oo xaraani aanay ku jirin ayaa cad. warqadaas certificate-ka waa la hayaa. marka waa xalaal. tan labaad waa muntaj ama waa product ama waa alaab fiican oo qurux badan oo waa doctor oo adduunku wixii USA ama Mareykan lagu sameeyo ugu quality fiican. Mareykan baa lagu sameeyo alaabtan alaab meel kale ama China ama meel kale laga soo qaaday maaha. waa Mareykan lagu sameeyay qish male tuuganimo male maxay ahayd isla wareegsi male dulmi male. wuxuu waa wax waadixa oo alaab la kala iibsanayo hadcad la kala qaadanayo weeyaan. waxa wax laga qaadanaya ama macaashka la qaadanaya waxa weeyaan waa faa'iido oo qofka banaadamka ku helayo juhdi dadaal soo jeed tababar u sameeyo. habeenkii waxay isla galaan 9 habeenimo WhatsApp bay leeyihiin. WhatsApp-kaas ninkii ku jiray uu sharxaya kadib faa'iidadaas ay leedahay tan kan ay leedahay kan sidan u iibiya kan sidan sameeya marka uu safraya qofkii marka Luqmaano wuxuu wax ku helayaa waa juhdi iyo dadaal iyo waqti iyo maskaxdiisu uu meeray oo meesha u galiyay. fiqhiyan xagga fiqiga waxa weeyaan ay mas'alad cusub masaajidna ma jiri jirin waa mas'alad cusub soo taswiiqda noocan ama waxan iibka noocani. dabeetana waa inaad shariicada islaamka toob u gelisaa hadday geliso haddaanay gelin marka wixii waa la diidayaa. culimadu waxay u taqaanaa beeca noocan ee company-gan sameeyo jicaala wax loo yaqaano.
jacaalada waxay culamada kuwa kale yidhaahdaan waxay yidhahdaan alwacdu biljaa'iza ballanqaad jaa'isad ama hadiyad in qofku helayo marka jacaala la yidhaahdaa ilahay subxana wa taala jacaalada kitaabkiisa wuu inoogu fasaxay suuratu yuusuf ilahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay aayad arrintaa ka hadlaysa oo sharxaysa in ilaahay subxana wa taala qofka bani aadamka wuu ogolaaday inuu wax iibin karo inuu wax abaalmarin lagu siin karo wixii qofka bani aadamkii uu la yimaado taa markaynu ka nimaadno wuxuu ilaahay jalla wacala inoo sheegay waliman jaa bihi ximlu baciir qofkii la yimaada ee helaa waxaana la daydayayo waxa weeyaan awr yani raran ayuu qofka bani aadamka helaya marka waa jaa'isadii la helayay waa jacaalo waxa shareecada islaamka u taqaano caqdigani marka waa caqdi loo yaqaano wacdu biljaa'iza ballanqaad jaa'isad in qofka bani aadamka hadduu waxa iibiyo inuu jaa'isad ama abaalmarin uu qofka bani aadamkii uu helayo caqdigani maaha siday dadka culamadu bari sheegayaan laba baycatayn fi bayca laba beecoo isku dhex jira oo odhanaysa shaarkan iga iibi anna shaarkan aan kaa iibinaya taa shareecada islaamka ma ogola waayo shaarkaadu waxaad u iibsanaysaa shaarkayga waxaad u iibsanaysaa yani qofku wuxuu iibsanayaa siduu waxa kale u helo maaha maadadan waxaa loo baahan yahay in qofku inuu iibsado wixii uu isagii doonayo isagii u baahan yahay laakiin marka labada baycadood waxa weeyaan in qofka bani aadamkii adna kan iga iibi anna kan aan kaa iibinaya baycateen fi bayc baa lahdaa taa shareecada islaamka ma ogola bayc iyo sulfa maaha oo waxdii la kala daynsanaya maaha wixii kaash baa lagu bixinayaa waxa weeyaan shardi bayci ma leh oo wax shardiya oo ku jira ma jiro baycan taswiiqan waxaa loo yaqaanaa ama suuqgelinta waxaa loo yaqaanaa ataswiiq shabaki ayaa loo yaqaanaa taswiiqa shabakiga ama network wax loo yaqaano network ayaa loo yaqaanaa taa khibraddii baan kaga yaro sheekeeyay aanu lahaa inaan waxaan ka daba tegay anuu soo baaray waxaan kaga yaro sheekeeyey shareecada islaamku si guud waxay ka qabto shuruudihii haddaynu degdeg u sheegno ay baashan ku ansaxaysay hadday sax tahay culimmadu shuruuday u sheegtay taswiiqa noocana ee shabakiga loo harami maaha haramigu wuu ka duwan yahay kan shabaki baa la yidhahdaa taswiiqa shabakiga in uu jiro product ama maadad la iibinaya oo la taaban karayo tii way jirtaa 200 maadadood bay hayaan dawadi cadayga hayaan cadarkii bay hayaan kareemkii bay hayaan kii la cabay sharabadii bay hayaan wixii waa wax la taaban karayo oo waliba quality leh qofkuna uu iibsanayo sidoo ugu intifaacdo isagoo uga faa'iideysto taasi waa kow tii way jirtaa markaa kambanigeenni maadadii waynu haynaa 200 maadadood baynu haynaa oo la iibinayo ama 200 shay oo la iibinayo tii labaad culimadu waxay sheegeen in aan qofka bani aadamka markuu membership galayo ama uu xubin noqonayo inaan lacag laga qaadin imka wadaad istiraadii soo gal application talabaad buuxinaysa inaad soo galayso talabkaagii baa la qaadaya oo lagu process gareynaya number baa lagu siinaya numberka lacag lagaga qaadi maayo talabkaas aad soo gudbisay lacag lagaga qaadi maayo haddii lacag lagu yiraahdo bixi $50 oo fee ama $100 oo fee halkaas taasi xaraan bay noqonaysaa shardiga labaad way waafaqsan tahay oo talabka wax lacag laga qaadaya ma jirto ka saddexaad lagu oran maayo inta lagu qasbo qalinka iibso منتجka ka iibso lagu qasbi maayo kii aad doonaysid inaad iibsatid kii aad adigu faa'iido ahaan aad ka faa'iideysanaysid ayaad luqmaano aad insha Allah ta'ala aad iibsanaysaa arinta labaad waxaan la kala qaadanaya waa cumuula waa commission oo kale waxa la isku haystaaba commission kaas banaayim sama banaana commission kaas uu banaayaho qofka bini aadamka ee dad keenay dadkaas uu keenay wixii ay iibiyeen ayuu commission ku yeelanay dadkii isagii baa tacabkiisii galiyay isagii baa u sharxaya isagii baa ka warhaya ta kale commission kan uu qaadanaya ku furan oo 300 qof oo keenay maaha 3 generation oo kaliya 3 talaabo oo kaliya ayuu wax ku qaadanaya maxaa laga wadaa de ka tobnaad uu keenay ma bagaari karo وسكينة تطبو سي كاني وحي قفك ما كنترولي كرايو ظلمي بين نقولي سما كان كوا wax ka qaato laakiin saddexdan group ama saddexdan generation waa saddex oo control karayo habeenkii telefoon isu dirayaan whatsapp ka wada hadlayaan facebook ka wada hadlayaan whatsapp ka isugu soo galayaan waa saddex group oo taladii iyo tusaalihii iyo culayskii iyo juudigii uu galinayo taana way ka soo baxeen taswiiqan shabakiga loo yaqaan waliba company-gan uu sameeyaa ballan qaadiya ma leh كمبنيه هرميga iyo qolooyinka kale waxay ka oranayaan multi millionaire baan noqonaysa hebel baa soo galay bishii hore 300 kun buu helay hebel waxa male wixii aad dadaashida aad qabatid baad wax ku helaysaa adiga iyo dadka kale ee waxa ka faa'iideystay ta kale waxa shuruudaha kamida in qofka bani aadamka maartay commission kiisa la siiyo oo la dulmin waxa kadalika kamida in laga ilaaliyo company-ga iyo taswiiqa iyo soo gelinta waxa loo yaqaan qimaarka in laga ilaaliyo qararka in laga ilaaliyo beenta in laga ilaaliyo ribada intii oo dhanna waanu soo baarnayo company-gaasi qarar ma leh oo khiyaamo ma leh oo way muntajkii baa jira qimaari qarar toona ma laho muntajkii baa la taaban karayaa wuu jira meeshii riba ma laho wixii wax la kala iibsanayo saddex wixiina qofkii loo xisaabinayo beeci baa jira
والربا ماشى كمان مغضى تكله أكل أموال الناس بالباطل لما شروا تدخلوا هذه اللي قد عيام ما لقى خيامين ما شروا هنصوت بالضوبة وحويا نقطة سؤال شو تكون ما هتصنتهاي إلهي وحنقوله ارتجيا كمبني بارستيان تجيان صوباري شروطه فقه هاي قوة في شيء إن كمبني جاسي وحلالي هاي تكون أي كجنا عسن كران أو قف من هذيك المنبر كنا نكون كرو وحويا شروطه أي نشجنا دوقف من هذيك كصبحه وحويا كمبني جاسي إن شاء الله تعالى وحده بعطاء إن شاء الله تعالى مله قف من هذيك وسواس هاي سكيلاليو دعاية دي وحن الله بهرين هاي سكيلاليو وحويا قف كدوحي علم ولا قلنا صوب بندقه أدي أنا أقول ولا هاينا تجلس لسودرية تلفون لسودرو لسكهر ليون سومالي هذا البادلي qofku ma ogola inuu waqti geliyo inuu baxthi sameeyo inuu wixii soo baaro inuu research sameeyo hebel baa yiri heblaaya tiri wixii xalaalna ku noqon maayaan xaraamna ku noqon maayaan war ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku cabsano wixii ilaahay noo xalaaleeyna iska xaraantinimaynin kambaniyada noocan oo kaleena hal la taageero in haramiga ahayna shabakiga hal la taageero shaqo gelin bay sameynayaan wadankii bay maadooyin cusub ku soo kordhinayaan imka product cusub oo Mareykan baa ay soo kordhiyeen dadkii bay shaqaabuur u sameeyeen waxa weeyaan qolooyinkii wax keenay baa faa'iido ku helay ummadii waa شغل مخايدها فديدا شقة أبور بمشي يمد وحنا سوقين الدولة دير جلسوا شعبك ودير جليو حي دعاية دقيقة وحن رخيص كأي بلا معناه يعني نسكيل علينا إنه ولاية سبحانه وتعالى كعب صنينا إلى خير كاينا وافق شيء دم بيجي كوال كيف الله دافو كم بني جاية كشقيني أنا خير بدون بنقول رجينيا وأنا نسود عينيا هذا ولا أديات بعض ما تنتهي